السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميل والبوات شوكتان وعبدي محمود قلا يا برنامج كيدين كي ما جري معهد كنبضة يا بلشدة. برنامج كمان توحي مكسوق هذا ولا ريال خطرها إسا صوت ريا يكو آدن ودن كينا oo dhibaatada aynu isku hayno iyo qabyaaladda iyo isdiidka ma ahana dibadda inooga imaanaysa oo ay sii baritaarayso ama ay sii kordhinayso siyaasad juquraafiyeedka adduunka oo isbedelaya. arrimahaas ayaan barnaamijkan kaga sheekaynaynaa iyo khataraha say u weyn yihiin. waxaan marka hore idinka codsanaynaa inaad barnaamijka taageertaan oo like iyo subscription ku samaysaan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. gabar Soomaaliyeed ayaa ii soo dirtay video nin Ethiopian oo hadlaya oo le Ethiopia waa inay bad hesho. Ethiopia inay bad hesho doonitaankeedu waa mid taariikhi ah, waa mid fog weeye. laakiin imika dardar ayuu ku socdaa. shakina male Ethiopia inay badda soo taabanayso. arrinta dawladooda oo dhan baa qabta, dadweynahooda oo dhan baa qaba, ra'iisul wasaarahooda ka hadlaya, kuwada ciidamada haysta ka hadlaya, aqoon-yahankooda ka hadlaya. cid walba ayaa leh Ethiopia waa inay bad hesho. Ethiopia waxaa ku wareegsan dhowr wadan oo mid walba bad leeyahay. Suudaan ka soo qabo, Eritrea, Djibouti, Soomaaliya, Kenya, kulligood baday wada leeyihiin. intaasna badda ugu dheer waxaa leh Soomaaliya. badda ugu dayaca badan oo ciidamo ilaaliya aan lahayn oo cid maamusho aan lahayn na waxaa leh Soomaaliya. ninka Ethiopianka isagoo hadlaya waa kan. So why can't we, there are numbers, we've done some studies and others have done some studies. At the low end, the annual impact on the Ethiopian economy is around 20 billion, but we estimate it to be in tens of billions by not having our own. Why? We have inefficient ports from third countries, small countries. They're unable to invest in the kind of infrastructure Ethiopia needs. They charge us in dollars, okay? I mean, when we operate out of Djibouti or any port, we have to pay in dollars. If it was ours, or if we had some kind of access, direct access, where we control that thing, we operate it. And this is a sad part. A lot of these, I mean, I saw, for example, Somalia has 1,500 kilometers of coastline. What have they done with it? Nothing. I'm sorry, I mean, this is a fact. I'm talking from a purely practical point of view, from an economics point of view, okay? Nothing. So why can't we use it? We're a big economy. We have the capacity to invest in that infrastructure. We're going to grow. We're 135 million people, second largest population in Africa. And ninkaasi markaan dhageystay horta waa nin qurbaha ku noolaa muddo dheer. hadalkiisaan ka arkaa siduu u hadlayo. maaha kuma hadlayo af Ingiriisiga Ethiopianka kuma hadlayo, laakiin af Ingiriisi wuxuu ku hadlayaa ay muujinayso in ay saameyn ku yeesheen noloshiisa meelo kale adduunka ka tirsan. Canada, US, Australia, UK, ma aqaan meelahaas kale ku noolaan jiray. ninkani marka wuxuu yiri Ethiopia waa inay bad hesho. dhowr qodob ayuuna ku saleeyay arrintiisa. midda ugu horeysa wuxuu yiri dhaqaale weyn iyo dad fara badan ayaanu leenahay. waxa marka waxay u baahan yihiin buu yiri dekado sugan ayay u baahan yihiin. wuxuu kaloo sheegay dekadaha ay isticmaalaan sida Djibouti oo kale in lacaga badan laga qaado. wuxuu kaloo sheegay suu doodiisa u xoojiyo in wadamada ku xeeran oo xataa uu Soomaaliya ka magacaabay oo badda dheer leh aanay sugi karin dekadahooda iyo waxooda oo gobolkii aanu gobol degan ahayn. wuxuu intaa ku daray in Soomaaliya xeebteeda dheer aan ciduna ka faa'iideysan ay iska fadhida xaqna ma aha buu yiri taas. waana fikrad uu adduunka ka gadi karo sababtu waxa weeye khayraadka dabiiciga maanta bini aadamku waa inay ka faa'iideystaan. hadday shidaal tahay, hadday macdan tahay, hadday ma garanaysaa
استراتيجيات ميلا أي تاي waxay rabtaa ha noqoto adduunku waa inuu ka faa'iideysto anaa kaliya isaga fadhiyaya horumar kama samaynayo wax laga yeeli maayo ma samayn kartid saas awooddaas ma lihid dadka awoodda leh waxay rabaan bay samaynayaan Israa'iil baa soo fariisatay waddankeena hadda maalin Soomaaliland waa ictiraaftay tiri waxay la soo socotay waxay meesha ka samayn doontana ma naqaan waxaynu ka qaban karaana ma jiraan Ethiopia shaki male marka say arrinteeda ugu hesho taageero inay galaan gal badan samaynayso doodo dhisayso doodaheedaas inay ula tagayso Mareykanka inay ula tagayso midowga Yurub inay ula tagayso Israa'iil inay ula tagayso ururka Afrika inay ula tagayso cid walba inay ula tagayso shaki male marka ama ha laga diido ama ha laga ogolaado waxaa dhici karta marka dambe inay go'aan iyadu iska qaadato hadday go'aanka iska qaadato oo noqdo inay inagu soo disho oo qabsato meesha rabta waddanka qabsatana ama kulligiiba wada qabsato ama qaybo kamid ah ay qabsatana cidda ugu badan oo wax samaynaysa waxa weeye in la eedeeyo la dhaleeceeyo la yiraahdo khalad baad samayseen oo xeer baad jabiseen oo kan baad jabiseen dhaleecayntuna waxa uma tarto Israa'iil bay ka tari weyday imse qaraar bay soo saareen qaramada midoob oo leeyahay dadka reer Falastiin waddankooda iyaga leh aynka wixii ilaalin wixii ka horeeyay xuduudihii ka horeeyay 1967 aynka ilaa imse inta lagu hayay waxa uma tarayaan laakiin khatartu waa muuqataa waana weyn tahay degdeg inay u dhacdana waa laga yaabaa runtii degdeg inay u dhacdo laakiin waxa taa ka sii xanuun badan sida dadka Soomaaliyeed ay u moog yihiin arrinta sida ay u moog yihiin aanay u ogeyn isbeddelka adduunka iska dhacaya oo qofkii xoog leh ama ciidan badan haysta uu meeshu rabay isaga duulaya Mareykanku samaynayo cid walba samaynayso hadday rabto Israa'iil hadda ay samaynayso Lebanon bay qayb qabsatay hadda waana fadhiyeynaa bay tiri ciidamadeedii bay geysay Somaliland bay timid waxa laga yaabaa inay halka ciidamo kala keento oo ay tiraahdo Xuutiyiinta iyo magaciisa iyo Baabulmadda ba halka ka difaacayna marka Ethiopia inay tilaabo caynkaas oo kala qaado oo ma halka ay soo marto oo Seylac iyo Lughaye iyo dhulkii waagi Muuse Biixi u saxiixay ay timaado qabsato ama Garacad qabsato iyo Hobyo qabsato ama Baraawe qabsato ama meel kala qabsato ama intaas oo dhanba wada qabsato wax walba oo u suuragal laakiin inaga maxaa inoo tala Soomaaliyeed anagu halkaan marar badan baanu ka sheegnay oo niri war waddankaanu waa ina dhaafi doonaa go'aan baa laynaga gaari doonaa go'aan ah isuma talin karaan khatar bay isku yihiin gobolkii adduunkana khatar bay ku yihiin waxa uma maamuli karaan waxa uma hanan karaan waxba laguma hadlayn karo maalinta taasoo kala timaadana waxaad ka qaban kartaa ma jiraan horey baa laynoogu sameeyay laynoo qaybiyay Afrika la qaybsaday adduunka oo dhan baa la qaybsaday marka dawladaha awoodda haysta ay go'aamo gaaraan cidina wax kama qaban karto laakiin inagu maxay tahay inaynu samayno inooma muuqataba waxa muhiimadda inoo leh bal eeg hadda waxa waddankeena ka socda dadka Soomaaliyeed oo ama awoodda haya ama awoodda niyadda uga jirto wax isku talaa kuma jiraan waddankii oo dhan waa qaybsan yahay Xasan Sheekh intii ugu dambeysay la socotay waxay ahayd Baydhabo waa ka tagtay galmudug iyo waxa ku soo haray iyo Hirshabeelle iyaguna ma naqaan inay ka xiriir furan doonaan oran doonaan war waa ku day 60 maalmood baa ku hartay 50 maalmood baa ku hartay anaga tashanayna iyo inay meel kale iskala dhici doonaan ma naqaan laakiin waxa muuqata in tala xumo ay jirto in karti xumo ay jirto in danayn la'aan ay jirto in khatarta inaynu ku baraarugsanahay ba aanay u muuqanin anigu waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed waxaan garwaaqsadaan oo yiraahdaan war sidaan miyaynu ku jiri karnaa war sidaan ma inoo shaqaynaysaa war haddii balaaya ina qabsato oo dad diimo kala wata dad dhaqamo kala wata af kala wata hadday ina qabsadaan waa baaba'aynaa gumaysi meeshuu soo galo ummado kale meeshay qabsadaan Ethiopia kaliya ma rabto dekad yar oo ay qabsato laakiin waddanka hore inay qabsatay rabtaa
waddankoo dhan inay qabsatay rabtaa cid wax ka qaban kartaana ma jirto innagaana ugu nugul Eritrea waa naf huraysa Djibouti uma turi karaan oo adduunkii oo dhan baa fadhiya Kenya wax weeye waa isdifaaci kartaa Suudaan waa iska liidataa laakiin iyagu xaggaa uma jeedaan waxa laga yaabaa inay maaqan ma ka fog tahay ma adigu halkan Soomaaliya ayuu soo saaran yahay ma garanaysaa ma garanaysaa focuskoodu soo saaran yahay gooray noqotaba shaki kuma jira Ethiopia inay badda tagayso mana aha kaliya dekad inay rabto Ethiopia waxay dhisatay ciidamo badeed bay dhisatay Faransiis iyo Ruush iyo wadamo kala ka caawiyay markay hadda qabsatana taageeradeeda waa sii siinayaan marka waxa laga yaabaa inay baddaadoo dhanba kontarosho waayo adigu ciidamo ma lihid hadday rabto adiga ku saari kartaa maxaan ku yiraahdaa cunaqabatayn oo maraakiibta kuu socotay waxa kuu socda ayay wax walba fatashi kartaa waxay kuu keeni kartaa cudurdaarkay rabto al-shabaab bay hub u wadaan iyo kanay wadaan iyo magaciisi iyo kan iyo balaayo waxay rabtay kuu keeni kartaa maraakiibtii cunto ama magaciisi ama daawo waday hadday rabto dhowr bilood xayiraysa halkaa ku haynaysa waxay rabtay samayn kartaa haddii badda marka dadka Soomaaliyeed aanay runtii tashanin oo aanay heshiinin oo aanay ku baraarugin khataraha jira Soomaaliya halis bay ku jirtaa taariikhduna waxay xusi doontaa kuwa hormuudka inoo ah oo yiri waan idin maamulaynaa oo ina horbooday laakiin ina gabay kuwaasay eedu saaraanaysaa ummadda Soomaaliyeedna cafiye mayso ilaahayna cafiye maayo si uga gaabiyaan waajibkooda uga gaabiyaan laakiin waxaan rajaynayaa in wax isbedelaan oo dadka Soomaaliyeed ay khasbaan dadkan ay ku khasbaan oo yiraahdaan war waxaan rabnaa dawlad waxaan kuma jiri karo walaalayaal awood baad leedahay dadweynaha Soomaaliyeed waa inaynu helno dadka ah oo gobol Soomaali ah oo magac leh oo isu yimaada oo isbedel keena waa inaynu helno rajaynayaa taas degdeg inay u dhacdo Cabdi Maxamuud Qalla iyo barnaamijkeedin ka imaan jiray Machadka Nabadda iyo Bulshada aad iyo aad baad u mahadsantihiin nabadgelyo walaalayaal